dowlad goboleedka Jubbaland ayaa diyaarinaysa qorshe weyn oo ka saacidaya ganacsatada in ganacsigooda ay u helaan dhul iyo amni lagu kalsoonaan karo wuxuuna maanta mar oo xariga ka jiray xarunta Amtel ee shirkadda Amal Group oo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland uu ballan qaaday ganacsatada in canshuurtana laga dhimi doono isla markaana loo sahli doono in ay horumarsadaan ganacsigooda waana suuqa ugu weyn ee dalka marka laga hadlayo ganacsiga ku dhisan dhaqaalaha iyo tartanka xiisaha badan shirkadda Amtel waxay ka qayb qaadan doontaa shirkadaha bixiya adeegyada kala duwan ee dhanka telefoonada gacanta iyo internetka maamulka shirkadda ayaa sheegay in ay ballaarin doonaan xarumaha shirkadaha ayagoo sheegay in ay soo bandhigi doonaan adeegyo bulshada muhiim u ah ummad aan lahayn institutionno maaliyadeed oo xoog badan casriyeysan nidaamsan meel ma gaarto waxaa naga go'an madaxweyne ku-xigeen inaanu hormuud ka noqonno horumarinta dalkan iyo dadkan muddo badan baan ku taabaynay inaan ka hirgelinno xarumo waaweyn deegaanka waa bilow mashruucaani haddii ay baydmo waanu ku fidi doonaa deegaamada Jubbaland oo dhan waxaanu wadnaa adeegyo fara badan oo qayb ka noqon doona horumarka bulshada oo dhan ama ha noqoto qof ama ha noqoto qoys ama ha noqoto shirkad ama ha noqoto dawlad wax badan oo khayr aan soo wadnaa waadna sharafteen jazaakumullahu khayr dowlad goboleedka Jubbaland ayaa diyaarinaysa qorshe cusub oo ganacsatada ka saacidaya in ay helaan dhul amni ah isla markaana ganacsigooda ay ku horumarinayaan wuxuuna gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajil uu sheegay in ganacsatada ay ka caawin doonaan wax walba oo ku saabsan horumarinta ganacsiga waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan hore aad u socotaan annaguna waa idin garab taaganahay waxaa la idinka rabaa magaaladu waxay soo koraysaa koritaankeeda waxaa la rabaa inaad qaybta ugu weyn ka qaadataan insha Allah dhinac kasta hadday bilicda magaalada tahay hadday wixii barnaamijyo oo lagu shaqeynayo tahay kan hadda isgaarsiintana waxaan rajaynaynaa inaad noogu dhaqsataan aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Wadheere ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in ay dhaqaalaha dalka kobciyaan isla markaana xarumaha waaweyn ee dalalka shisheeye ka dhisan in ay u soo wareejiyaan Soomaaliya si maalgashiga iyo dhaqaalaha dalka uu kor ugu kaco maalgashiga iyo ganacsiga madaxa bannaan iyo horumarinta inay aad u jeceshahay waxa marqaati ka inta wasiir waxaan niyad same naga oo run naga oo daacad naga inaad soo dhaweynayno maalgashiga madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland wuu ku dhawaaqay in la soo dhaweeyo ganacsiga xorta iyo maalgashiga shacabka reer Jubbaland waxaan leeyahay war cidii horumar wada la qabsada cidii adeegood waxa la qabsada shirkadaha waxa la qabsada xarunta Amal maanta ee maalgelinta iyo bangiga ay furtay waxa la qabsada kuwa kale ayoo kale waxa la qabsada adduun lacag jeeb lagu wada lagu maamulo Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo